horta qubayska waxa loo fiirinayaa ma janaaba mase waa qubayska loo iska raaxaysiya haddii qubays iska raaxaysiya uu yahay marka horeba horta laguma ogolay qofka sooman waxaa la rabaa in aanu qubaysan shahwada la rabo soonka inaad iska xirto ama waxa naftu jeceshahay ama raaxada la rabo soonka inaad xirto way ka mid yahay qubaysku hadduu waajib ahayn mar haddii waagu mariyo lama qubaysto yadacu sharabahu wa ta'amahu wa shahwatahu buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam liajli wuxuu ka tagayaa cunadiisii iyo cabitaankiisii iyo shahwadiisii buu daraadday uga tagayaa shahwada waxyaabaha masmuucaadka oo la maqlo iyo kuwa la arko iyo kuwa waxaas oo dhan la uriyo raaxada oo dhan ama tarafuha oo naftu jeceshahay oo dhan rabadaanta waa la iska ilaaliya qubaysku waa ka mid haddii marka qubayskaagu ahaa qubays waajiba oo intii adoo taxadirahaya biyahaasi kugu boodeen janaabaad ka qubaysanaysay adoo taxadirahaya hadday biyahaasi kugu boodeen soomkaagi wuxuu dhibi mahaya lannahu mubaalaqa haddaana jirinin waxa ka dhashaa soomkaa waajibka ah soomkii burin mahayo laakiin mubaalaqo hadday tahay baa soomkii burinaya sidii rasuulka uu reebay oo u nahiyey calayhi salaatu wasalaam haddii shaygu waajib ahaa aad ka qubaysanaysay biyahaas kugu sabqay waa cafis haddii uu shay sunna ahaa aad u qubaysanayso madluub aad u qubaysan kartaana ma jiro madluub haddii uu yahay shay la dalbay inkastoo ramadaanta aan la ogolayn mar haddaad sooman tahay na waxaa la yidhaahdaa musaabaqada ka dhalataa guud ahaan waxaa loo kala qaadahayaa mubaalaqa iyo hayrulmubaalaqo hadda adoo weysaysanhaya hadday biyihii kugu boodaan waxaa loo kala qaadahayaa inaad mubaalaqa samaynayso biyaha wax fara badan aad fiifsatay iyo adoon mubaalaqa samaynayo taxadiraya inay kugu boodeen haddii mubaalaqa ay ahayd soomka waa jabhaya ilaa shaygu shay sunnaab u ahaa aad u weysaysanaysa waxaa la istishaaqo weysadu waa waajib laakiin istishaaqu waa sunna haddii uu shay waajiba ahaa haddii aadan mubaalaqa samaynin oo aayar adoo taxadiraya uu kugu boodana waxba kaa burin maayo waa markuu shaygu sunna yahay shaygu waajiba hadduu ka dhashay musaabaqadaas adoon adugu u kasin yay biyahaasu kugu boodeen waxaad samaynaysana waa shay waajiba weeye waxaad samaynaysa adoon u kasin bay kugu boodeen waxba kaa soomkaaga u dhimi maayo hadduu iska raaxaysi ahaana haddaad u kastay iyo haddaadan u kasin macnaha haddaad xoog biyaha wax fara badan dhegta ku shubtay ama sanka iyo haddaadan ku shubinba haddii uusan qubayskaasu waajib ahayn ee midkaan layska mayrta uu yahay soomkaagii waa jabahaya sidaasuu noqonaya aad baad u garatay baan u malaynaya haddii soomkaasu soom waajiba ahaa asaadan waxaas ugu talagelin oo u kasin adigu musaabaqadaa ka dhalatay soomkii kaaga buri maayo haddaan qubaysku waajib ahayn ee qubays aad isaga raaxaysanaysay oo ahaana wixii ka dhashay soomkii wuu kaa jabinaya waa inaad maalintaa qadaysaa